عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن، رواه ابن ماجه، رقم 2045، والبيهقي السنن 7. On the authority of Ibn Abbas, may Allah be pleased with him, that the Messenger of Allah, peace and blessings of Allah be upon him, said, Verily Allah has pardoned, or been lenient with, my ummah, their mistakes, their forgetfulness, and that which they have been forced to do under duress. A Hasan hadith narrated by Ibn Majah, and al-Bayhaqi, and others. waxaa laga wariyey ibnu cabbaas eebbe ha ka raali noqdee labadoodaba in rasuulku sallallahu calayhi wasallam uu yidhi: ilaah wuu u dembi dhaafay ummaddayda khaladka wuxuu kas u samaynin ilowga iyo wixii lagu qasbay. xadiis wanaagsan waxaa wariyey ibnu maajah number 245 iyo albayhaqi al-sunan 7.